horta in afrikaani horta xil kama dego هذه kama dego waxa weeyaan waa dhargeey xilki waa ka dayay laga maqal waligiis khilaafkaanu meesha uu ka soo bilowmay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa u jeedaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu si toos ah u farageliyay hantidii ummadda dalku madaxweynuhu leeyahay madaxii ugu sareeyay waa madaxweynaha waxaana shaqaynaya shirku madaxweynuhu ku baaqay. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh asxaabtayda soo dhawaada meel walba aad joogtiin iyo si kastoo idin soo gaarayo muuqaalkan quruxda badan qofka in la hadlayo waa Maryam Ladan Xuseen channelka daawanaysiin waa Maryam Ladan official fadlan waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan haddii ku soo gaaro like ta share ta iyo subscribe ta iyo waliba comment-iga waa dhankiina soo dhawaada asxaabay mar kale maanta waxaan ka hadlaynaa ra'yi aruurin aan weydiinanay dadweynaha reer Galdoobab taasoo la xiriirta khilaafkan u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo la taagan yahay xilli doorasho la sugayana in la dardargeliyo doorashada see u arkaan bulshada reer Galdoobab khilaafkan maxayse ka dhaheen su'aalahaas ayaan in la wadaagaynaa iyo dadku say uga jawaabaan iyo sida ay uga falceliyaan waxaan leenahay daawasho wanaagsan waxaan inka ilaaway dhinaca kaamirada quruxda badan haba dhinaca u dhacaysa waxa iga caawinaya walaalka Cadnaayare mahadiya ka gaadhe markale waxaan leenahay soo dhawaada asxaabteena soo dhawow ku soo dhawow Maryam Ladan official adoo magaca ku bilaabisid waxaan wadnaa ra'yi aruurin aan weydiinanay dadweynaha reer Galdoobab taasoo waxay ku oranaysaa waxa taagan khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo lagu jiro xilli doorasho ee la sugayo in la soo dhiso golaha shacabka maxay kaga dhigantaa bulshada Soomaaliyeed khilaafkan maxayse ii sheeg u keeni kartaa gaabis xagga doorashada bismillaahir rahmaanir rahiim horta magacayga waxa la yiraahdaa Garaar Faarax Geesood waxaan ku noolaa degmada Galdoobab waxaan ahay nin oday ah oo dawladii aadan cadde iyo tii absi ashar marka iyo tii maxaa siyaad bare iyo afartii dambe isbedeshay joogay maana horta in afrikaani horta xil kama dego kama dego waxa weeyaan waa dhargeey xilki waa ka dayay laga maqal waligiis Julius Nereeri baa la maqlay anu khilaafka maanta Soomaaliya rajaan qabaanu maadaama la doortay aqalkii sare kuna xiga aqalkii hoose waxaan isla waxba iftiimayo 4 sano farmaajo dadka soo xukumayay tartan uu gali karaa waa u furantaa inuu galo ama halaga adkaada ama habele waxaa lahaa iftiin dawladnimo baxaya xaqiiqada markaa fiirisidna burburkii wixii ka dambeeyay raggii isbedbedelay oo madaxweynayaasha ahaa madaxweynaha ugu mataqaanaa ugu waxqabadka badan laakiin xoogaaba asaga laftiisa fari ku godan tahay waxaa bulshada qaarkeed leedahay program buu wadaa ah dad asaga daacadu ah inuu madaxweynayaasha gobolada ka dhigay dawlad goboleedyada inuu soo baxo ku noqdo rabo ma xuma waxa weeye marka aanu rajada aan qabay waxay ahayd dawlad baa la helaya laakiin khilaafka kan aad iyo aad buu u dhaawacaya dadka Soomaaliyeed aniga meel buu iga yaalaa nin oday aan ahay waxaan lahaa 20 sano u soo shaqeeyay dawladda Soomaaliya waxaan lahaa waxaad iftiinkii nolosha sii galeysaan waxa weeyaan wadanka waa la dhisayaa dawlad goboleedyada hadda Hirshabeelle waxaan leeyahay amiin nimanka la yiraahdo ikan koonfur galbeed waa la dhisayaa galmudug hadda waa la dhisay Hirshabeelle Puntland waxaan isla haday waxa soo hagaagaya laakiin xalay hadalka markaan maqlay aad baan u xanuunsaday maanta oo madaxa leeyahay marka waxaan oran lahaa khilaafka iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed u naxariista oo ummadda Soomaaliyeed arka dhibaatada iyo waxa ay soo martay 30 sanado walaalayaal heshiiyaan leh waka aad baa maasad ku soo dhaw walaal Maryam Ladan official waxa wadnay ra'yi aruurin ama sheeg fikirka dadweynaha kaasoo la xiriira khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo ognahay in wadanku uu galay xaalad doorasho isla markaana doorasho la sugayay in haatan khilaaf uu imaado maxay ummadda Soomaaliyeed kaga dhigan tahay maxaase laga filan karaa khilaafkan labadii mas'uul ugu sareysay saameeyay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh walaal horta waa ku dhawahay Maryam Ladan official doorashada dalka Soomaaliya waqti dheer bay soo tiijamaysay ilaa muddo hal sano iyo bar ah baa la isku fahmi waayay dad bana gooniya leh oo ayagu doonaya inay is sharaxaan baa doorasho intaas carqalad ku hayay oo rabay inay mataqaana ku soo baxaan ummadda Soomaaliyeed waa u muuqataa waxa jira waana ay ka warqabaan mana xog mooga markaan u soo noqdo su'aashii khaaska ahayd oo ah khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaafkaanu meesha uu ka soo bilowmay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa u jeedaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu si toos ah u farageliyay hantidii ummadda
wuxuu kale uu farageliyey doorashadii labadaba marka boob doorasho iyo boob hantiyeed buu dalkaba ku hayaa sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo la shaqeynaysa ra'iisul wasaaraha iyo cid kasta oo ka agdhow iyo waxgaradka Soomaaliyeed inay ka waaniyaan arrimaha noocaas ah oo ah boobka dhulka Soomaaliyeed iyo waxa weeyaan doorashada Soomaaliyeed in la boobo oo shacabka Soomaaliyeed doorasho hufan ayay doonayaan ma doonayaan doorasho madaxweynayaasha maamul goboleedyada kaligood ay waxa weeyaan iyo luuq intay la galaan ay ku xeestaan ummaddu matalaad ayay doonaysaa dhaba waxa weeyaan madaxweynuhu waa uu ku saxan yahay wixii ma taqaanaa dalka firaaq ku keeni kara ama ku keeni kara xasilooni darro oo hadhow asaga lagu eedeyn doono inuu hadeer ka hortago oo ka joojiyo oo gacanta ka qabto waana wixii loo igmaday waajib qaran baana ka saaran waana lagu garab taagan yahay ninkii asagu hadda ku hanjabaya inuu dalka dagaal galiyana isagay u taala meesha uu dagaal galinayo in walba gurigiisa ayuu degan yahay ummadda Soomaaliyeed kuwa galdogob jooga kuwa gaalkacyo jooga kuwa xamar jooga waxay diyaar u yihiin nabad ninka gurigiisa asagu iska gubaya isagay u taala waxaan kaloo halkaan uga faa'iideysanayaa Boosaaso waxa ka dhacay dagaalkaas cid horisay dadku dhan waa u jeedaan wax ka warqabaan maamulka Puntland waxaan ugu baaqayaa inuu ku soo noqdo dhabihii wada hadalka iyo nabadda assalaamu calaykum waa tahay Jibriilow madaxweynuhu wuxuu ku baaqay shir sidoo kale ra'iisul wasaaruhu shirarkaas isdiidan maamul goboleedyada qaarna ay dhaheen shirarka waa ka kala qayb galayna qaarka kuwana ay dhaheen dhanka madaxweynaha kuwana ay dhanka ra'iisul wasaaraha khilaaf noocee keeni kartaa iyadoo loo tukado shirarkaas isla caasimadii ka dhacay haddana inkastoo shirka madaxweynuhu uusan waqti astaysan uusan ku sheegin haddana waajib baa ka saaran madaxweynaha shirkiisa waxa weeyaan wuxuu ku baaqay shirkiisa markan in siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb galayaan oo ay midowga musharaxiintu ku jiraan halkaan waa in midowga musharaxiintu ay ogaadaan in shirka haddii ay waxa weeyaan garab siiyaan waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed doorashadeeda inaan la boobin haddii ay garab siinayeen waa inay shir ay qayb ka yihiin oo ayagu ay ma taqaanaa waxa weeyaan qayb ka yihiin ayaa madaxweynuhu ku baaqay si loo saxo doorashada maamul goboleedyada wada ay ma taqaanaa xayuubsadeen maalmihii dhaweeyto oo Roble farta ka saaray khalad bay ahayd waana ku fashilmay 14 bilood ayuu doorashada dalka waxa weeyaan waday waana ku fashilmay anaguna shirka waxaan taageersanahay shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay shirka madaxweynuhu ku baaqay baanu taageersanahay in wax la saxan taageersanahay ma ogolin in xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya la dhaco oo waxa weeyaan shakhsiyaad gooniya dhacaan diyaar uma nihin dalkana nabad darri u keenaysa noo oran mayno deegaanada ayadan ku duuleynaa hadii la dhaco doorashada laakiin dalka fool xumay u keenaysa dad yow jira waxa jira hadii xumin la dhaco dhaha waxaanu ku duuleynaa xamar waxaanu ku duuleynaa magaalo heblo waxaanu ku duuleynaa madaxtooyada hadaad ku duushin taadar gurigaaga baad iska dumisay cidna guriga baad dumin intaas aan ugu baaqayaa dadkana dii kursiga laga dhaco wadadii ma taqaanaa waxa weeyaan lagu xakameyn lahaa oo kale ummadda Soomaaliyeed inay ka fikirto weeye oo aan dagaal ahayn soo dhawo walaale ku soo dhawo Maryland official adoo magaca ku bilaabisid waxa wadnay fikir ama raay aruurin dadweynaha weydiinay ama sida u arkaan khilaafkan saameeyay labadii madax ugu sareysay dalka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii ayadoo lagu jiro xilli doorasho maxay bulshada Soomaaliyeed kaga dhigan tahay seesa u arkaan bulshada reer Galdogob bismillaahir rahmaanir rahiim Maryland official aad baa mahadsan tahay marka koobaad haddaan ku bilaabo magacayga Cabdullaahi Cali Kaarabiin والله خلاف كان صوع عصبون هذا آد ببلشدو دبرتشب وجوهي ولو رئيس الوزراء وحي الله إد مضي وقبل وايي دورشد الله إد مضي مركا أن تاجر سنة جوان كجيس إن ماذا له قاطي مدحوينه محمد عبد الله فرماتشو وأنا سود ويننا maamul goboleedyada kale oo dhiman inay ra'yiga la qaataan baa qabnaa koonfur galbeed hadda way qaadatay marka way soo dhaweynayna ra'yigaas marka maxay kaga dhigan tahay khilaafkan madaxweynuhu shirba ku baaqay sidoo kale ra'iisul wasaaruhuna shirarkan isdiidan hadana isla laga yaabo in caasimadii ka wada dhacaan maxay keeni kartaa dhibaato walaal dalku madaxweynuhu leeyahay madaxweynuhu ugu sareeyo madaxweynaha waxaana shaqaynaya shirku madaxweynuhu ku baaqay ra'iisul wasaaruhu shaqadii loo idmaday uu ka soo bixi waayay wada qaldan buu qaaday marka waxa leenahay asna ilaahay soo hanuuniyo
dhibaatadan iyo khilaafkan ilaahay naga baabiyo laakiin wadada saxan madaxweynaha ku taagan aad baa maasantaa walaal soo dhawow ku soo dhawow Maryaladana official waxaan weydiinanay dadweynaha reer Galdogob galabta khilaafkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeya iyadoo la galay xilli doorasho ee bulshaduna ay sugaysay in doorashada la dardar geliyo saa ognahayna maamul goboleedyo badan ay doorashadii ka dhacday qaarkoodna ay dhimanayd si u arkaan bulshadu maxayse kaga dhigan tahay in xilligan uu khilaaf yimaado waliba madaxdii ugu sareysay uu ku yimaado khilaafkan horta ilaahay horta ma iska leh meesha ka soo hadlayo waa degmada Galdogob weeye runtii waa dad jecel Soomaaliya waa dad jecel dalkooda waa dad mar walba ka dhiibiya bixi mataqaana ku soo kordha dalkeena hooyo haddaan sheego khilaafkan prime minister ku markii uu baarlamaanka hortagay xukuumaddiisa waxay ahayd 100 maalmood bay ahayd waxayna ahayd xilgaarsiin bay ahayd ma ahayn inuu mataqaana siyaasadda ku milmo hadafka loo keenay waxay ahayd inuu doorasho dalkan ka qabto doorashada uu qabanayna inay mataqaana noqoto heshiiskii September mataqaana lagu mataqaana gaaray mataqaana gobolka mataqaana Banaadir iyo gobolka Banaadir iyo xubnaha mataqaana dowladgoboleedyadu ay mataqaana ay gaareen heshiiskaas uu ahaa heshiis mataqaana dadban doorasho dadban wuxuuna ahaa heshiis siyaasi oo ahaa maadaama markii hore labada aqal ee baarlamaanka ay mataqaana u codeeyeen doorashada qofkii hal cod oo liidako kama dhici karto in ra'iisul wasaaruhu siyaasadda oo ku milmo waxay ahayd wax aad iyo aad mataqaana looga xumaado shicibka Soomaaliyeed uga xumaadaan waxa kale oo haddana wax laga xumaadaa in madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo oo asagoo ahaa madaxweynihii dalka hero of state dalka ugu sareeyay ahaa asagiina inuu awoodii ama mataqaana ra'iisul wasaarihii awoodiisu oo ku qabsado runtii taasna waxay ahayd wax ayaan daraa iyadoo dowladdan oo ka ekaa 8 February 2020 oo ka ekaa madaxleedkii mataqaana dastuuriga ahaa ee hay'adaha mataqaana dowladda federaalku in maanta mataqaana oo khilaaf yimaado ma ahayn marka waxaan u baaqayaa madaxda dowlad goboleedyada sida mataqaana Puntland, Jubbaland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo mataqaana gobolka Banaadir iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay isku yimaadaan shacabka Soomaaliyeed waxay mataqaana ay rabaan waa doorasho dalkan shifad dastuuri ah waxa ay 4 sanaba inay ka dhacdo doorasho marka khilaafkan ku soo aaday xilliga kala guurka shacabka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka mataqaana siyaasiyiinta ah iyo asxaabta dadka ah ee raba dalka inay xukumaan ama fikirkooda mataqaana ka dhibtaan oo ciday rabaan ay soo saartaan muhiimaddu waxay tahay uma jirto wax la marka waxa la rabaa in miirku soo laabto caqligu soo laabto Soomaalnimo soo laabato dadkii mataqaana Septemberna way joogaan inay hirgeliyaan wali waxaan ka codsanayaa dowlad goboleedyada inay aad iyo dowladda federaalku inay mataqaana inay aad mataqaana u dardargeliyaan wixii lagu heshiiyay heshiiskaasi mataqaana in la baarmarin oo la furfurinin waayo danayaasha Soomaaliya mataqaana waxay ay mataqaana heshiiskaasi ay u tahay faa'iido weyn waayo doorashada lacagta mataqaana ku baxaysa waxa bixinaya mataqaana beesha caalamka iyo danayaasha Soomaaliya marka waxa la rabaa dalka in loo turo shicibka loo turo caqligu soo laabto Soomaalinimada iyo kitaabkaad madheena oo saxina qabanin aad baa maasantahay soo dhawow walaal ku soo dhawow Maryaladana official adoo magaca ku bilaabisid waxaan wadnay ra'yi aruurin ama fikirka dadweynaha bulshada Galdogob aan weydiinanay taas waxay ku oranaysaa ay waxa dhashay khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyadoo lagu jiro xilli doorasho khilaafkaas u saameyn kara bulshada Soomaaliyeed oo haatan sugayay inay ka gudbaan ay sheeg hanaankan ii sheeg doorasho la'aanta ayna u gudbaan doorasho fikirkaaga soo aragtaa khilaafkan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo wajahay xilligan adag wallahi walaal waa hawl adag ma garat marka aad bay maaragtay mushkilad u tahay waxa weeye hadii haba khilaaf hadeer khilaaf hore yimid habsan baa doorashadii galay haddana khilaaf kala yimid marka khilaafkan uu sameeynaya dib u dhac mar walba sameeynaya waxa weeye waxa maaragtay xilka qaadis waxa ka hawl kale waxa mirig wixiiska daba wareeg bay noqonaysaa markasta markasta madaxweynaha iyo iska hor yimaadaan iyo ra'iisul iska hor yimaadaan markasta khilaaf baa imaanaya marka waxaan oran lahaa intii dib u dhac uu soo imaan lahaa أول بواحد ويا هل سنة دبودع قال دور شو قشي مركا دبودع دنبه يا ذلك الله علم
هذا واحد لنا واحد أنت سنك دبعت النقطة هذا نبضي إنه دبعت النقطة. marka yaa dib dhac wada isleedahay maadaama khilaafku haddu hareeyay labadii madax ee ugu sareeyay dalka khilaafkan yaa wada muxuu saameyn u geysan karaa bulshada Soomaaliyeed saameynta u geysan kara waa iska garanaysa qof walba garanaya ciyaalka macruurta ma garanaysa saameynta u geysan kara wax kasta ma kara khilaafku markasta uu soo noqdo dib dhac markuu yimaado haddana waxa imaanaysa عدو كستبا كفايدة سنة وحوي عد كستا أو عيل قبتي وماش سوق جلس كفايدة سنة ما قرأ وحيمانا يا واحد سوداء كذا إن يصون قدام بالي كرت كوي لبع عند بعض قرن إن يصون عيد مدل سوق جري إن ما ركت حاجة ولا ما ركت ولا تدل فتوى كفايدة سنة ما قرأ هم نقا فرع كبحية وتبغى ضم بيمانس